kulanti wacan markale saaxiibayaal ku soo dhawaada maanta 5 waxyaabood ama 5 shay oo kamid ah waxyaabaha ragga ay ka rabaan xaaskooda ama qofka xaaska u noqon lahaa mustaqbalka oo idin qaada dhigo anigoo ah wariye Cusmaan Indoos. hadaba daawaday haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin channelka inaad subscribe saarto sidoo kalena aad gambaleelka furato si aad ula socoto bartani muuqaalada kala duwan iyo barnaamijyada kala duwan ee aanu idinkula soo wadaagno. imika iyo haatan ku soo dhawaada waana diyaarintii wariye Cusmaan Indoos. qodobka koobaad aan ku bilaabay nin walba wuxuu rabaa in ay noqoto xaaskiisa ama qofka mustaqbalka uu la wadaagi doono inay ahaato qof naxariis badan ama si kale haddii aan u dhaho qalbi jilicsan oo ka muuqato naxariis ficil iyo hadalba. qodobka labaad waa inay ahaataa qof fahmaysa ninkeeda ama qofka mustaqbalka ka leedahay waxa dhibaya iyo waxa uu diidan yahay intaba asigoon hadlin ama dhihin waxaas ma rabo ujeedada faham ama waxa aan uga gan leeyahay waa inay tahay qof la socota dareenkiisa mar walba iyadoo naxariis u muujinaysana lana jaan qaadaysa mar walba xaaladda uu ku jiro. qodobka saddexaad inay ahaato qof hami leh hiigsina leh waa waxa nin walba uu jecel yahay inay ahaato xaaskiisa ama xaaska mustaqbalka uu ka rabo waayo daawade marka xaaskaaga leedahay hadaf ama gool ay rabto inay gaarto waxay ka mid tahay horumarka qoyskaaga sidoo kalena kula garab galaysa hamigaaga iyo hiigsigaaga wax badan ayaa nolosha ku wada guuleysanaysaan. laakiin xaas aan hami lahayn raggu ma jecla waayo Soomaalida waxay dhahaan gacmo wada jir ayay wax ku wada gooyaan. qodobka afaraad raggu waxay jecel yihiin xaaska aan isbadbadal lahayn afka qalaad waxaa lagu dhahaa she is constant ama waa qof sida aad ku baratay ama dabciga aad ku taqaani aan marna iska bedelin oo aan waji kale la soo bixinin. daawadayaal waxa badan marka nolosha la wada bilaabo oo nolosha la guda galo in xaasaska qaar la soo baxaan waji iyo dabci kale oo aadan ku aqoon marka aad xiriirka lahaydeen ama inta soo sheekeysanayeen intaba. qodobka shanaad nin walba waa jecel yahay in xaaskiisa ay leedahay muuqaal jir ahaaneed soo jiidasho leh oo aysan noqon qof isku fasaxda shaaha cadeeska iyo caana cabid badan. qof walba ilaah abuurtay waa qurxoon yahay waxa la isku dhaafay oo kaliya waa qubeys badsashada iyo iska taxadarka nafsadaada oo aan ula jeedo inaad jirkaaga ka taxadartaa oo aadan isfasaxin samaysaa jimicsi jirka. waliba qarniga hadda aan joogno daawadayaal aad ayay raggu u jecel yihiin dumarka jir ahaan dhisan. intaas ayaan ku soo afmeerayaa intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono haddii alla idmo sida iyo nabadiino.